rahmatullahi wabarakatuh waxa jirta in dad yoga qaar ay ka cawdaan in Facebook uu ka dhiga iyaga dad murugo badan talo sababtu waa maxay muuqaalkan isaga ah ayay ku arkaynaa diraasad waqti hore la sameeyay waqti aan saawsi horeyn hadana diraasad waqti hore la sameeyay ayaa waxay cadeysay in Facebook uu marka qaar uu ku keeno depression ama murugo xad dhaaf ah dad yoga qaar sababtana markii la ogaaday sababtu waxay ku soo urtay hal arrin oo kaliya Facebook dadku markay adeegsanayaan waxay aad u sameeyaan waxa loo yaqaano comparisons ama isbarbardhig naftaada ayaad barbardhigaysaa qof aan isku seesbaayadaan ahayn inan ayaa waxa isbarbardhigaysaa inan kale oo dhaanta mid iska maskiin ah oo dan yar ah ayaa Facebookeeda galaysa dabadna waxay arkaysaa saaxiibadeed ama qof ay family yihiin oo meel safar ugu baxday ama waxa way dibadda u dhoofaysa ama hodheel ku jirta ama alaab cusub soo iibsatay dabadna arrintaas waxay ku abuurisay xaasidnimo anigu maxaan uga haray qeyrkay taasi waxay ku abuurisay murugo waxa inta badan dhacda innini waxa way uu murugoodo saaxiibkii wuxuu arkay magister ama master tii dhameeyay isaguna digrigiibu imka la rafanaya ama ma hayo taasi waxay ku abuuraysaa murugo waxa arkayso inta badan dhaca in la guursaday tii kale la guursan baa arrinta iyada ah murugo ay ku abuuraysaa waxaad arkaysaa nin shaqadiisii la dalacsiyay arrintaasi waxay ku abuurtay waxa weeye kii bila shaqada ahaa warwar iyo murugo ay ku abuurtay mar walba sameeyno comparison isbarbardhig aynu sameeyno ad naftaada barbardhigto qof aanad gaadhayn ama ka sareeya ilan ilaahay oo nolosha ugu talagal in la kala sareeyo ogow waxa aad ka faa'iideysaa waa murugo sida awgeed haddii aad doonayso Facebook uu kugu ahaado wax iska caadiya noloshaada caadiga aanu saameyn kaga tagin fadlan iska ilaali comparisonka waxaad iska ilaalisaa isbarbardhigisa adiga iyo qof wax allaale wax noloshiisa ka ogtahay baan jirin inta badan waxa dhacda in nolosha la fake gareeyo oo future laga dhigo ninba wuxuu soo dhigay sawir wanaagsan isaga iyo gabadhiisa oo gacanta soo haysta hadii noloshooda hoos aad ugu dhaadhacdana jixiima ayaa ka hooseysa laakiin wuxuu doonay dadka tuso inuu yahay nin romantic ah qof romantic ama reerkiisa isku fiican yihiin waxaad arkaysaa mid hay dalasa oo digada ah waxba hayn oo gaari saaxiibkii leeyahay isku sawirayo doonay inuu ku sheego hadda gaari hebel baan leeyahay waana been wuxuu hayaama jirto quraacda ayaa laga bixiyaa marka xaaladda inta arkaysa Facebook inta aad noloshaada aad barbar dhigaysid ogow intooda badan waa fake waxba kama jiraan noloshaadu si aan kaaga xumaan iska ilaali cudurka isbarbardhigga ah sidaas aanu Facebook marnaba aanu ku noqonayn wax kugu sababa murugo iyo walbahaar salaam calaykum